aniga gaan imika taasan wataa waxaan ka shaqeeyaa waa magaalada dhexdeeda wada aan marana male wada aan ka shaqeeyo male maayirku hadaladiisii aan aadka ma garanaysaa noo qancin waxa kamid ahaa bulshadii soo dooratay markasta xafiiskayga hor fadhida waxaad moodaa wax lagu qaybinayo afartii laamiye yar yar caashiq u shidaa sameeyay wata la wada googooyay dadku ku wada ku fayaan inaan arrinkaas u dhicin baan idinka rabnaa waxaan rajaynaynaa inaad dulqaad badan muujiyaan Mukhtaar maayir ku xigeenka iyo maayirku dulqaad badan sameeyaan oo aanu aaminsanahay inuu yahay maayirka dalxiiska khilaaf xoogan oo ka dhex jira golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa maalinta ka dambeysay cirka isu shareeraya haddaba bulshada ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waanu saaka mikrofoonka la dhex qaadnay ayaa aragtidooda ka dhiibtay khilaafka ka dhex jira golaha deegaanka ee degmada Burco waxaana yiraahdeen sida tan khilaafkan golaha deegaanka ee muddadii ugu dambeysay ka jira golaha deegaanka anigu waxaan u arkaa inuu yahay khilaaf waxa weeye aan de ma garanaysaa wax saliya raatoona aan lahayn oo ku saabsan maamul xumo meesha ka jirta iyo dhalinyaranimo iyo isjiidjiidad inay meesha ka jiro waayo waxaan aaminsanahay ama maayirka ha noqoto inaan horta sinaba maayirku inaanu ahayn qof khibradii uu maamulnimo ee odaytinimo ee uu ku maamuli lahaa gobolkan aan lahayn waayo sababtu ay tahay hadduu leeyahay arrimahani may dee soo baxeen xal baa laga gaari lahaa waayo sababta ay tahay taa waxa cadeyno ah dawladdii hoose ee gobolka ka tagtay waxa la yidhi lacag bay wareejisay tan iminkana deyn qayral macquula oo aan dawladda dhexe ee dalka mar aan dawladaha caalamku aanay gelin baa lagu leeyahay baa la leeyahay gobolkii oo ay gashay aad iyo aad baan ugu xunnahay hal goor haddaad taado cashuurta berri mooye saadime u soo noqda kaama yeelayaan misana waad aragtaa waddada iminka suuqayaga marta waddooyinka suuqa mara gaadhiga aad kaxaysato 10 waxaad maalintii arkaysaa intaasoo shakalo uu sii daayey waxaasna waxaan aaminsanahay inay maamul xumo iyo waxa weeye dhaliilo golaha deegaanka dul hooganaya oo khaasatan waxa weeye Soomaalidu waxay dhahdaa madax meel ka sareeyo oo la salaaxa ma jirto maayirka gobolku waxa weeye waxa ka muuqata dhalinyaranimo tanaasul la'aan shaqo la'aan iyo inuu yahay qof aan u dabacsanayn oo u jajabnayn oo u jeedin gobolka annagu waxaanu aragnaa oo aanu aaminsanahay inuu yahay maayirka dalxiiska sideeda banaan Hargeysa iyo Berbera iyo dalxiis buu iskaga jiraa gobolkii iyo degmadii loo doortayna dayac fara badan iyo baahiyo asaasiyo aad u fara badan baa ka jira walaalo kullee waxaan u arkaa anigu inay dantooda kala riixanayaan kuwa wax qabadna kama sugan wax qabadna cid kama sugaysa waxaan oran lahaa sanadii fuugu heshiiyo meesha dabca u tagteen marka horena wax qabad leedi kama fuleen wax qabadna reer Burco marka horeba cid kuma doortaan marka horeba dar Ilaahay looma soo doorto iyo wax qabanaya ninka wax qabanaya waa la reebaa reeraha reebaba marka waxaan leeyahay meesha marka hore wax qabad leedi kama sugayni waxba kala riixanina meesha waxay ka soo baxay basar law cuna oo aan dadku idin maqlin waayay wax qabarka dawladda oo magaalada ka qabatay labadii sano ugu dambeeyay sidii ay kula muuqato waxa laalay waxay qabatay baan ugu maaragba afartii laamiye yar yar caashiq u shidaa sameeyay wata la wada googooyay dadku ku wada ku fayaan imika laamiyadii hore in muraad sameeyay xukuumaddiisii wada bohol meeran baa laga dhigay islaamiyo odayaasha kuwa ku wada jabay laamiyadii yar hore la sameeyay wada bohosha laga dhigay waxaan rajaynayaa inay fulinta hadda joogta ay dadaalayso dhalinyaradu xildhibaanada kale ee mucaaradka ku aan waxaan leenahay waqti isbedel la galo laguma jiro laakiin waxaan rajaynaynaa in saaxiibayaal hawsha dib u eegtaan in goliina ku dhamaysataan in shacabkan daalan wax qabadka idinka baahan maxay heeto wax qabataan isla gaar ahaan dhalinyarada gobolka Togdheer oo la eegayay oo idinku weynaa sanaguna han baan lahayno halka joogtaan baan doonayna inaan hiigsano si hadhow aan caqabad noogu noqon in hadhow dibna loo doorto oo laga baxnaaqa dhalinyarada dambe oo ay soo taagto fagaaraha inaan arrinkaas u dhicin baan idinka rabnaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa telefishinka Honkeba TV gaar ahaan wariye sare Cabdirashiid Timir oo runtii la badareen bulshada gobolka Togdheer gaar ahaan bulshada degmada Burco markastana soo gudbiya waxyaabaha bulshadu tabanayaan iyo siyaasadda xilliga ka dhex taagan degmada Burco loo arrinka khilaafka ee ka dhex taagan golaha deegaanka ee degmada Burco iyo yootanka maalmaha basoo noqonaya baraha bulshada haysta runtii waxaan oran karaa anigu waa arrin aad u xun dhalinyaro waxaanu dooranay golihii deegaanka ee ugu dhalinyarsanaa aan ragayna aqoonta ku taagaynay aynu sanadkan dooranay waxaan uga fadhinay maanta wax qabad rasmiya oo ay bulshada ku soo kordhiyaan runtii maanta markaynu soo eegno 2 sano oo buraaba buruguroogay wax la taaban karayo ay bulshada degmada Burco ka qabtaan ma jiraan marka waxaan arrinkaasi ka waantoobaan inkastoo niman dhalinyaro badan arrinka ka waantoobaan iyagu dib hay isugu noqdaan
gulahooda ha ku xalliyaan wixii iyaga ka dhex taagan dawladda hoose waxa weeye hadalka runta laga sheegaa waxqabadkeedu wuu yar yahay laakiin waxa yimi caqabado badan baa hortaagan dawladda hoose caqabada hortaaganna waxa weeye ratibaa ninkii lahaa lugta haya ma kacdo war ninkii inanka lala soo doortay ee inanka maayarka xildhibaanka la ahaa ee wax u sheegi lahaa ee wax u qaabilsanaa markuu isagu cunuu iskaga maro say noqonaysaa xaaladii dadweynuhuna say noqonayaan waxqabadse saa lagu kici karaya waxa waxqabad lagu kaca oo uriya diirkeed la isku noqdaa marka la isu dhan yahay ee la midoobo ayaa meel la wada mari karaa laakiin inta midna halkaa ka qaylinayo midna halkan ka qaylinayo dee maayarna wax qaban kari maayo wax qabadna iman maayo bulshada wax looga fadhiyaa in khilaaf la hor yimaadaan loogama fadhiya wax looga fadhiyaa inay dee wax qabad la hor yimaadaan oo dee ay wax ummadda u qabtaan waan aragnaa wadooyinka magaalada aniga iminka taasan wataa waxaan ka shaqeeyaa waa magaalada dhexdeeda waddo aan marana male waddo aan ka shaqeeyo male boqolkiiba dee waxaan odhan karnaa 99 way burbureen way baabeen gudaafadu waa la mid marka waxa weeyaan dee bulshadii soo dooratay bal jeedinaya hal doonaysa saa la isugu haystay xoolaha ummadda la isugu 5 sanana ee la doortay ay dhamaadaan marka waxaan u soo jeedin lahaa anigu odhan lahaa khilaafkiina halkiisa ku dhamaysta de ummadana wuxuu qabtay ummadii soo dooratay ee degmatay ee idin ololeysay ee idin xiiqday idin raaday de wuxuu qabtay iminka magaaladiina wada aragtaa wadooyinka way baabeen wadooyin ma jiraan iyagoo sii baabaayba hadana habeen iyo maalinba la sii jeexayo la sii qodayaayo de meelan ka shaqeyno iyo meelan marno iyo meelan wax ka qabanayno ma garanayn marka waxaan leenahay aan u soo jeedin lahaa golaha deegaanka iyo maayarku hadaladiisii de aan aadka ma garanaysaa noo qancin waxa kamid ahaa bulshadii soo dooratay markasta xafiiskayga hor fadhida waxaad moodaa wax lagu qaybinayo taasoo de bulshada meel ku dhac aad weyn ku ahayd oo aan de ahayn de waxa loo doortay de maayarka inuu xafiiskiisa de la yimaado la fadhiyo la joogo isna ummadda u shaqeeyo sida de maayarada dalka magaalada la tirtamay de caasimadda imka labadaas sano de waxa wax u qabtay waa la garanayaa iyo say u horumartay de inagina dib bay u sii soconaa wadooyinka way baabeen kudaafadu way taalaayo dadku wadooyinka si wax walba isla soo taagayaan bacad dhaansan gaadiid daamayo ka soo haray maayiradii hore iyo golayaashii deegaankii hore ayaa wax loogu qabanayaa oo dawlad shaqeynaya marba meel ku xumaanayo marba meel istaagay marka waxaan la khilaafkiina hoos u dhameeysta oo waxba maxkamadda isla tiigsanin oo isla isariyinina de ummadana wax ay idinka arki karto oo de macquula u qabtay nin xil qaadiyay waayo qof kasto meel haya ama waxa weeyaan mas'uuliyad saaran tahay waxna waa ka khaldamay wax ka saxmayaan marka mar walba waxaan ku boorinaynaa maayirka waxa weeye degmada gobolka inuu maxay tahay u dhagan uglaado bulshadiisa wixii khaldan maxay tahay waayo bulshadu waxa weeyaan waxa weeyaan dhii weeyaan waxyaabo fara badan oo khaldan way jiraan wax saxsan way jiraan mar walba inuu waxa weeyaan wixii khaldan la saxun baa muhiim ah dani horta uma qalmaan dhalinyarada reer gobolka waana nasiib darro waana ayaan darro inuu maanta maalintii ilaahay soo gada khilaaf dibadda uga soo baxayo dani waxaan jeclaa in dhalinyarada gobolka Togdheer si ay si dhaantay faraj khayr qaba ilaahay noogu bedelo horta inaga soo doornay oo rag ka waaweyn way joogaan oo golaha way kula jiraan laakiin si waxa muhiimadu ah in kii loo muhiimadda gobolka meel gaarsiin lahayn loo igmado la doorto oo meesha la saaro iyagana de sidana si ay soo gudaamaan oo gorgortaga iyo garoonka ka daayaan horta marka hore in la wada xisaabtamo waa muhiim maayirka markiisa horeba shaqo wacan buu hayaa waa shaqadii gobolka de anagu Cabdirasaaq Khayre waxaan u aragnaa inuu gobolka ka dhigayo FIB dawladda hoose iyo mas'uuliyiinteedan waxaan leeyahay shaqadooda ahayn baa hayaanba labada mas'uuliye maayirka iyo maayirka xogeenku labaduba marka way ku fashilmeen bulshooyinta iyo shacabka reer Togdheerna waxaan ka raali gelinayaa de hadafka iyo yoolka waxaan u sheegayaa golaha deegaanka inay waddanka u soo jeestaan isku caruufiyoodaan wax wacan oo qabtaan gacmoodish wax ku gooyaan marka naga daay khilaafka Cabdirashiid Timir maqal muuqa caalamiga ah Cable TV Burco